السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز جوجتان أدبادين سلام يا وأنا قول لك إنسان كهالك كده وأنا سنة وهالكني يورا مساتين عفمات كينا مركز جوجتان هذه سلام يا وحيد الله ما أقول كيس مالك الله من سارة مالها وكدر فيديو جينا ما أنت نحكي بسنة وحياة بدن قضاء بدن إن شاء الله شكرين جنا وفرق بدن وحرجنا يعني مركز فيديو خيبيس دم إلى لجاري دم تناجلاي مركز كان هذا هو الدفعلين يعني قال الكاميرا ده قال دمرها ما جزيه إن أرتب أنتو حيمان مقالة قريب كم ذا يماني نكان وحول يعني سترونج معناها جاكدي وحول بهني بيروح والله قاجيم كأد وقاضاني كان يا أنت نقولين هذا سكبرتورت ما قاعد وش أصحابتي ما دام معناها مقالة سؤال دمانته أو معناها إن أسكبر شالين أني أسكت يوتيوب ديرت بيننا first time أو يوتيوب وسوق لا يعني دايركت أكو أسمان خيبة خوصة متخانة ها ولين ماشي ومحس ولي جابوا حياة ملاحظة كده بس كاميرا جالس يعني ملاحظة كوجرتو كم ده هني كان إن مركا إن أصحابته كومنتي سوق اللي إن شاء الله حرفان كان إن عشان أنا ورت أجندي عمل وعبنا وعبسنا وجبنا يا إن شاء الله فيديو جينا ما كعلنا ملقى halkaas waxay taagan saaxiibkay aniga mar walba banaanka soo aadayo horta waxa waaye kaamiradaas iga mahareyso oo mar walba aan baxayo aan meel aadayo waxa waaye in saa'ida ma socoto waaye maantana macnaha waxaan u soo baxnaa waxa waaye xogaa inaan kafee soo cabno aniga saaxiibkay asxaabta kale asaga la mid ahna oo gadaal taagan waxay dhaheen macnaha kaamirada uma baahnin inaan soo galno in muhiimadda waxay tahay marka banaanka soo aadaysid waxa uu talagashay naftaada xogaa happiness oo siisid farxad iyo la soo qaadid dadka bini'aadanka asxaabahaga jawiyo kala duwan ay qaadid mar walba in mid meesha ugu muhiimsanaa waxay tahay qof hadda ka hor waxa la weydiiyay ma taqaanaa nin baa meel ka soo haajiray wuxuu u imaaday asxaab kale wuxuu yiri marka nimayaha waxaan rabaa nin xigmad leh inay ii geysaan oo maanta aan wax ka faa'iidi karo xigmadiisa marka waxaa dhacday in qof baa wuxuu yiri marka hebel oo halkaas joogo xigmad aad u wanaagsan oo aad u fara badan yaqaan marka ina wax ka faa'iidada laga yaabaa ninkaas u tag bal wuxuu kugu soo taro soo ogow ninkii baa baxay ninka kale u tagay 12 habeen oo sii socday maalinta dambe ko meesha tagay waxaa la dhahay marka niyahow adaan ku imaado yiri waxaana kugu imaado waxay tahay inaad waxa aad taqaanid xigmad ah wax iga siisid hamar sugaa dhameystay xigmadda aan ku haya waxa weeye yiri marka aan jeclahay inaan kula wadaago adiga in aamusnaanta amar walba ku dadaashid markaas wuxuu yiri aamusnaan see u aamusi karaa aniga wax uu sheegay markaas wuxuu yiri haddaa hadashid afkaaga kala furtid waxyaabo badan laga yaabaa inay ka halaabaan marka sideedaba macnaha waa hadal nin weyn macquulna ah qofka garasho leh uu fahmi karo horta mid kala jirto oo aniga iga qoslisay oo aan la yaabay mararka qaar markaan arkana aan is dhaho acuudu billaah xataa waxaan la sheegayo qof ku soo wacay wuxuu ku leeyahay qarraf ku soo wacaya waxaas leeyahay wax fiican ku sheegi doona waa ka qabanaysaa qofkii marka qabatid wuxuu ku leeyahay arrinaan soo maqlay aan rabaa inaan kuu sheego laakiin ha sheegin sababtoo ani adiga waxba isla ognahay in banaanka aadama rabaan niyahow haddii adiga aad hayni weysay aniga ashuun mihi ama qabri mihi oo macnaha hadalka maanta loo dhiibo la dhaho sanduuq camal waa dibiraysa qofku dibiraya moogtaa yaa sheeko wada ka hor buug waxa ka akhriyay macnaha nin baa sheeko loo soo sheegay kadib meel uu ku hayay intuu garan waayay god intuu qoday godka u sheegay dhulka intuu qoday godka u sheegay wuxuu yiri saas jirto kadib waxa dhacday marka geed god ka soo baxay geedkii hadlay marka aniga geedna ma ahi bini aadan baan ahay wixii la ii sheegay oo qarin galaa waxa adiga qarin weysay aniga ma qarin kare afkaaga ku amaansanaado macnaha wax walba oo ii sheegi rabto afkaaga ku amaansanaado ha isoo wicin waqtiyuna ka lumin hadhihin marka macnaha waxbaan kuu sheegi rabay ha sheegin ma jirto waxaas sankaale dhaha ashuun maahi wixii la ii sheego banaankaas yaala laamiga uga imaanaysaa salaamu calaykum